marka aad qurbaha joogtid dadka kula soo xiriiraya waxay noqon karaan laba qaybood, dad adiga dankaa leh iyo dad adiga ku danaynayo. qofka danta kaa leh dantiisa waxay noqon kartaa inuu dhaqaale kaa rabo, inuu information kaa rabo, iyo inuu adiga wax kuu dirsanayo waxaa ii sameeyo ku dhahayo. markii mawduuca halkaa joogto isticmaal qaacidadan: qof kasta oo adiga dankaa leh dantaada ha u lumin. ugu horreyn dantaada qabso, kadib qofkan haddaad u awoodid u qaba dantiisa. dantaada qofka danta kaa leh ha ka hormarin. qofka adiga ku daneeya marka wuxuu noqon karaa qof ku jecel, wuxuu noqon karaa qof familkii ah, wuxuu noqon karaa qof saaxiib wanaagsan ee xaaladaada ka warhaynayo. qofkaasoo kale waa qofka kuugu qiimaha badan noloshaada, waayo dee qofkan danta kaa leh markuu dan kaa leeyahay unbuu kusoo xiriirinayaa, laakiin qofka adiga ku daneeyo already mar walbuu garabkaaga yahay, isaguna ha ilaabin. asalaamu calaykum.